munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo loogu dabaaldegay soo dhaweynta sanadka cusub ee 2020 ayaa ka dhacday aqalka ummadda ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Munaasabadani ayaa waxaa soo agaasintay isla markaana isku soo dabariday maayirka magaalada Djibouti Marwo Faadumo Cawaale Cismaan. Munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay fanaaniinta kala duwan ee dalka Djibouti iyagoo halkaas ku soo bandhigay heesahooda kala duwan. waraysi gaar oo ay siisay telefishinka caalamka badda cas maayirka magaalada Djibouti Marwo Faadumo Cawaale Cismaan markii ay munaasabadaasi la soo gabagabeeyay ayaa ay u dirtay dhambaal hambaliya dhammaan ummadda kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti iyadoo sidoo kalena dhambaal tacsiya hawada u marisay dalka Soomaaliya qaraxii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho. munaasabada sanadka cusub ee 2020 waxa markaa hore salaamaya madaxweynaha dalka Alxaaji Ismaaciil Margeele marwada koobaad ee dalka Alxaaji Khadra Maxamuud Xayd iyo dhammaan shacabka reer Djibouti meel walba joogan kuwa dalka gudihiisa joogaya kuwa dibadiisa joogaba aad baan u salaamayaa waxaan ku leeyahay sanad wanaagsan shucuurteeda aad baa wadaan faraxsan waayo waxa xuseena ilaahay baan ugu gaarsiiyay caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo horumar sanadka 2020 xafladuna si fiican bay dad u qabsoontay ma sha Allah dhalinyaro badan oo aad u fara badan oo ka yimiday saddexda degmo ee caasimaddu ka kooban tahay ayay ka yimaadeen caadana waxaan ka dhiganaynaa mar walba oo ay tahay haday tahay sanad la xusayo amba ciid caalanka ba inaan sabadka guriga umada hortiisa ku qabano xaflada dhaqana heeso fanaaniintu soo bandhigaan alxamdulillah waxa weeyaan sanad walba inay horumarka wadanka si balaadha ayaan aad iyo aad u jecelnahay waayo way ninka arkaya Jamhuuriyadda Djibouti horumarka ay ku tallaabsatay taana hindisaha waxa leh madaxweynaha Ismaaciil Margeele anaguna hadaan nahay mas'uuliyiintii mar walba waxaan ka shaqeyn doonaa sida wadankeenu horumarka ma aragtay uu si balaadh horumarkaasi uu si noqon ku joogta amniga ilaahay ma aragtay joogta si amni manika qaranay Djibouti waxa weeyaan waa ku wareegsan tahay wadano aad iyo aad anba mataqad maxaan ku raadayay aad dagaaladu uga socdaan alxamdulillah anagana ilaahay wuxuu naga dhigay wadan nabada oo dadku aad isku jecel yihiin insha Allah waxaan ilaahay weydiisanaynaa sanadka 2020 inuu noqdo sanadkii bashbash iyo barwaaqo saan nabada maanta waxayna inay nooga sii adkaato insha Allah shacabka kale haday tahay shacabka Soomaaliyana waxaan u rajaynaynaa insha Allah nabad baan u rajaynaynaa waayo toddobaadkii dhaweed waniga arkayay waxa ka dhacay qarax inaan horta tacsiyadeeyo weeyaan waayo waa dad walaalaheen oo nala dhashay inta kalena Yemen haday noqoto iyo wadanada kaleba ee jaarkeena ee dagaaladu ka socdaan waxaan oran lahaa ilaahay inuu ka qaado insha Allah taala anagana ilaahay nabada noo sii adkeeyo. munaasabadani loogu dabaaldegay sanadka cusub ayaa guud ahaanba ku soo gabagabowday jawi degan iyadoo guud ahaanba bulshooyinka ku dhaqan magaalada Djibouti ee caasimadda waa dalka Jamhuuriyadda Djibouti ay ka dhacaysay munaasabada aqalka ummadda ee dalka Djibouti
asma maxamed abukor iyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV magaalada Jabuuti ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.